walaal Faadumo Cali damcan waxaad noo sheegtay inaad tahay qof dhibana ah oo ku geystay dhibaato gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Xuseen Soomaali dhibtaas oo noo sheegtay in magaalada Baran ka dhacday haye walaal assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh anigu waxaan leeyahay Faadumo Cali dhibtaas waxay gaadhay 13 shaqood wiilkaas guriga gobolka shaqan ka daba wareegay baan goor maqrib ugu soo waayay waraqaha soo qaaday kaalay waan gartay haddaan meesha ugu tagay waardiyaashiisa dadka la joogay waan gartay haddaan macnaha qolkiisii galay oo aan qolkiisii dhex fariisanay waan quraanti ku dhaqay oo laba warqadood teeb garaacay midna ku jirto makiinadii waan gartay intuu ugu soo jeestay wuxuu igu yidhi walaale waxaan kaa rabaa inaan in yaro sheeka aan wada yeelano baan kaa rabaa walaal Cali Xuseen Soomaali baa ku yidhi waan gartay haddii uu saa igu yidhi waxaan ku warda waad khaldantay inaad aniga haygu khaldamin waan gartay adiga sida lay sheegay waxaa tahay qof xaasa oo marwa oo caruur iyo oday leh anigu 10 dal baan ahay ilmaha caruurtayda weyn waa 16 jir waan gartay haddii uu saa igu yidhi axmed waa naga taagtaagmay waanu is afdaafnay markaas kaan labada gacmood weliba gacanta bidixdaa buu igu dhegay waan gartay gacanta bidixdaa haddii igu dhegay waan isqabsanay waan dagaalamay dagaal fara badan baana dhex maray dhulku igu dhiftay halkaa naqabadaa wuxuu igaga dhigtay baaskooladii oo sida ul ahaan ah uu ila dhacay waan gartay xillina waxaa igaga dhacay miiskii waan gartay adigu waxaan kulli xal ninkaas inaad ergacdiye macnihii wax uu iila haray nafteeda uu u dhaafay ma ay jirto waan gartay markaas nin anigay qaba iyo niman ilmaadeertiisa baa hawshii galay waxaa laygu yiri gurigu isagii baa lay keenay gurigi baa laygu yimi waxaa laygu yiri adeeray aamus mar walahaan jirtay baa lagu siinayaa aamus oo hawshaas yaanay meel la gaadhin cidna yaanay gaadhin wixii mar walahaan jirtay baa lagu siinayaa maxay ula jeedaan wixii mar walahaan jirtay lagu siinayaa wixii mar walahaan jirtay lagu siinayaa lagu khaldamay aamus inna u sheegay waan gartay iyadoo ula jeedan xaal Soomaaligi xaal Soomaaligi shaqaayo kale baa leeyahay waan gartay waan yeelay markaas waan gartay 13 casha ka soo wareegtay 13 casho waan la igu soo noqon waan idina iman adoo hadda 3 casho ka hor baan ninkaygii wacay waxaan ku yiri maxaa dhacay arrintii aad igula balantay maxaa dhacay maadaama aad timaadeen adig iyo ninkii farxumeeyay oo aad tiraadeen waa lagu xaal marinaya wixii mar walahaan jirtay baan lagu siinayaa 13 casho aad iga maqnaydeen maxaa dhacay wuxuu igu yiri naalaba waa waxa sheegay ninkii laga waayay dafir waan gartay markaas shalay subax ayaan anigu khayr dhalaan ku dhacay odayaal ilmaadeerka iyo adeerada iyo abayaasha iyo walaalahay baan u tagay shalay subax markaan anigu khayr dhalaan dadka kula soo dhaxdhacay waan gartay marka walaalahay aniga xarka usaas igu dhacday waana sidaas waa tahay iminka xaaladdu maadaama hawshu ay sidaa ahayd oo markii gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Xuseen Soomaali arrinta faraxumaynta uu kugula kacay markii horena uu ku yiri shaqan ku siinaya wax xafiiskiisa kugu yeeray ka bacdi arrinta ay faraxumayn isu bedeshay laguna yimi oo lagu yiri wixii ay mar walahayd baa lagu siinaya xaal baa lagu siinaya arrinta hoos loo dhaqo hoos arrinta arrin hoos laga dhigo oo yaan cid kale inuu ogaan oo aan lagu soo noqon ninkiina uu hawshii dafiray maadaama aad shalay aad qayla dhaan dirsatay oo aad dadkii la hadashay iminka xagee xaal maraya seebay wax yihiin hadda wiilashaas aan kuu sheegay maanta ayaa ii yimi waraysi baa layga qaaday stationkana waa lay geeyey abadeedna cidii boostada garawana waa lala soo hadlay cusbitaalka unbaa ii dhiban oo aan aroortii la geynayo cusbitaalkii baa ku dhiban oo aroortii lagu geynayo marka gudoomiye Cali Xuseen Soomaali isagu hadeer marka miyuu dafirsan yahay inuu hawsha faldambiyeedka inuu geystay miyuu dafirsan yahay afar ninkay qaba iyo nin waardiya iyo nin ilmaadeer iyo nin markii dambe oo leeyimi la socday afartan nin weeye saddexda nin oo kale waa markaanti waa gartay saddexda nin oo isaga staafkiisa ilaaladiisa ahaaba markaanti ku amiya maya waxa ay ninkay qaba iyo nin markii dambe odaynimo u soo raacay waan gartay iyo nin kale ilaaladiisa marka hadeer odaygaagi meeyay adiga waa ciidanka booliska weeye airportka barameed odaygagu ciidanka booliska airportka barameed buu kamid yahay
muxuu marka odaygaagii marka hawsha miyaa ku kala tagteen ha waan ku kala tagnay banaankan ku tagnay isaga xigaadada iskureeniya waxaan ku riday inaad yarka wada karinayse nabada hadii aad ka fiiriyo halka isaga raac waan gartay faadumo banaankan kala joognaa hadda hagaag faadumo cali siciid walaal maadaama aad dhibana tahay oo lagu geystay arrintaas fardambiyeedka adigoo murwa ah arrintaana lagula kacay maxaad codsanaysaa maadaama aad nala soo xidhiidhay haddana aad nala hadlaysid waanu gacan xaquuqul islaamka wixii muslima iyo hay'ad iyo dawlad wixii islaam wixii qaban kara oo dhan ayaan codsanayaa aan hoos joogo oo magan wahay waan gartay haddii odayaal ku yimaadaan oo hawshaada ay damcaan inay hoos u dhameeyaan maadaama mar arrintaas ay dhacday oo lagu yiri hoos baa lagu hawsha loo dhamaynayaa ayna socon weyday mar kale haddii lagu yimaado arrintaas maxaad ka leedahay maya ma jirto walaal gacan iyo odayaal arrinteedu way dhaaftay xeer way dhaaftay tol way dhaaftay inta way gudaano qof islaam oo miskiinada oo dhibana abaanahay waxa aan qayra galaanka u tirsaday islaamka ilaahay ugu tirsaday